badhasabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbir ayaa ka hadlay deegaano laga helay macdanta dahabka ee waqooyiga degmada Ceergaabo iyo qaar ka mid ah deegaanada xeebaha ee bariga gobolka Sanaag oo uu dhawaan safar ku tagay laba hawlo yar oo kala noo baxnay kormeer xagga xeebaha ah xeebta ilaa meesha la yiraahdo Qadariya tagnay dadku iska hadal badan yahay oo dhulkii dahab baa laga helayo halkan baa xaafadayada haydii halkan baa bari adhigay ku saaleeyay meelan baan ugu tagnay dadkiina waxaanu ku soo balanay war cidii meel sheeganaysa wax tabanaysa waxaad ku sheeganayso gobolka la kaalay si laakiin caadifad iyo ciidan iyo wax la soo rursadiyo dhaqdhaqaaq kale kama ogolin waanu kala diray si wanaagsan bay noogu soo dhamaatay buurta waxaan ugu nimiyana qolo wasaaradda macdanta ay soo siisay waraaqo dadkii deegaanka iyaguna si wanaagsan bay soo afkarteen hawshoodaas way wanaagsanayd sahamis wanaagsanna way wadeen nabadgelyadooduna iska caadi bay ahayd waanu ka balanay dadka iyo iyagaba waxaa laga yaabaa haddii hawshaas ay ku guuleystaan kambanigaasuna in si wanaagsan gobolka horumar badan uu ka muuqan doono dadkana waxaan leenahay waarin badan baa leenugu xamaliyo meesha waxa leenugu yaacay colaad baa ka taagan nabad baa ka taagan dadka soo dhaweysta la shaqeysta haga toosiya ilaaliya horumarkan wuxuu ku xiran yahay nabadgelyadeena badhasabka gobolka Sanaag ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag jabhadda Korneel Caare isagoo sheegay inay hore u soo dhaweeyeen ciidamo ka soo goostay Korneel Caare dhawaana ay filayaan inay soo dhaweynayaan ciidamo tiro badan oo ka tirsan jabhaddaasi toddobaadadaan ku jiray shirkii ceelaf weyn markaan ka soo baxnay kormeero iyo hawlo yar oo xaajooyin badan oo gobolka naga taasana kamid aha alxamdulillah kumaanaan khasaarin hawlahaas dhamaantood si wanaagsan bay noogu soo dhamaadeen waa ogtihiin ciidamadii aanu halka ka soo dhaweynay ka soo goostay qarda ka yimi qaar kale oo cusubna berito hadii la ilaa waa soo dhaweynaynaa inta ku hadhayna waxaan ugu yeeraynaa dalkoodii hawshaas inay naga soo afkodo ayaan diyaarinay si wanaagsan baanay insha Allah uga hirgelaysa gobolka nabadgelyada gobolkuna si wanaagsan wada wanaagsan bay qabsatay sanadka cusub baan shuushkii raacinay ka cusub khayr badan baan rajaynaynaa xarunta gobolka kulli dhibaatada nagu weyn xaruntayda haysata wuxuuna heedan ka hadalnaa waxal maqleynaa waxaan ugu imi gobolka 108 magood oo taagan alxamdulillah waxaan ku tala galay mushkilada gobolka taagani waa maxay baan isweydiino waxaan uu qaba keenaya waa bal dadkan wax kala siiyo wuxuuda ilaa dhowr iyo konton way ka baxeen oo wayna dhaafeen ilaa soddoniyo kalena way noo mudaysan yihiin 80 markaan xagga isku marino dhowr 20 ka soo harayna insha Allah bal bishan January inaanu meel ku tirinaa baan isku daynaa hawlahaasna waxaan ku tala jiraa insha Allah inay naga soo afkaan dhibaato gobolka haysatay bay ahayd qodax nagu mudnayd bay ahayd waxay ahayd xaalad koruhayuna koruhay inay raabihii la daroon magtiisina la siin waxa laga yaabaa arsiin buuha oo gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa sidoo kale sheegay in la dhisayo dekada magaalada xeebta Maydh isla markaana loo fasaxay ganacsiga doonyaha kalluumaysiga iyo waliba in la dhisayo qaar ka mid ah wadooyinka gala xeebaha gobolka Sanaag Maydh waa tawgeedino dhibaatada jirtay waxa weeye wadxadan bay ku yar jirtay alxamdulillah waa la fasaxay doonyihi waa loo fasaxay waanu ku soo wargelinay arintaas in wixii kale day structure looga gudbayay sida hawshaas u soconaysana wasaaradii ku shaqo lahaa ayaa nooga nimi laakiin markii madaxweynuhu in loo fasaxay xeebaha doonyihi waanu ku wargelinay waanu kaga nimi in horumarinta gobolka sanadkan waxyaabo badan bay naga xanibnaa mashruucu ugu balaarnay SSDF waxay noogu jirtay bergoor dekada Maydh sanadkii hore dib ugu dhacday si laakiin sanadkan priority-ga number 1 ka iyada la siiyay
maadaama ay sanadkii hore Facebook ka hadhay Facebook in iyadu lambar 1 ka noqoto waxaan ku dadaalaynaa dekadu hadday bilowdo dadkay dhibaatadeeda ay leedahay wadadii tabcana iyo wadooyinka kale xeebaha gala sida Mareer iyo Hartiimi iyo Galdoora saddexdaba in wax laga qabtana waanu ku dalagalaynaa. ugu dambeyntii barasabka gobolka Sanaag ayaa ka hadlay qorshahooda sanadka cusub isagoo ugu baaqay qurba joogta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inay kala qayb qaataan horumarka gobolka Sanaag. waxaa sanadkan oo qorshaysan cusub inaanu furano airportkii magaalada madaarka iyaga inaanu furano baabuurtii dabdamiska insha Allah qacanteeda imika laba ku jira inta qurba jooga noo ah ama inta waxay sitay gobolka Sanaagana waxaan leenahay marka bakhaylnimadu waa cadownimo bakhayl cadow laaba leeyri oo hore gobolkiina wixii horumara ee la idinka soo baahdo dadka reer Ceergaabana intaasan ku waaninaya reer Sanaag wada jirkiina ayuunba horumar ku heleysaan wada jirkiina ayuunba nabadgelyo ku heleysaan wada jirkiina ma naxariis Ilaahay ku heleysaan intaanu caloosha wax isugu hayno waxa la yaalo wuxuu hagaagaya ma jiro sanadka cusub insha Allah khayr badan baanu rajaynaynaa rajo wanaagsan baanu qabnaa in 6 bilood hore inaanu hawlahayaga isku dubardaan ku talagaleynaa 6 bilood dambana in Soomaaliland annagana martido haddii la yiraahdo ayaan ku talagaleynaa. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, telefishinka caalamiga Ariel TV, Ceerigaabo.